بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. halkani waa EBC News Now. dawadayaal kusoo dhawaada warka maanta. taariikhdu waa 13 bisha September 2025. warka maanta waxaa idin daadihin doona anigoo ah Mustafa Abdullahi. dawasho wanaagsan. warkii maanta waxa uu saabsan yahay dagaalka ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka ee ka dhaxeeyay kooxda qawaariijta Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. isagoo warkaasi ka hadlayana warka ayaanu ku faahfaahin doonaa. dawasho wanaagsan. waa tahay dawadayaal kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. dagaal qaraadh ayaa shalay subaxnimadii jimcihii ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ee Macawisleyda. halkaasi ayaa la isku galay. waxaa weerarkaas soo qaaday ciidamada Al-Shabaab ee khawaarijta gelinkii hore ee subaxnimo. isla markaana waxa ay ku bilaabeen weerarkooda gaari ay ka soo buuxiyeen walaaxaha qarxa, taasoo ay ugu talagaleen in ay gaariga ay ku qarxiyaan isagoo miinaysan xerada ciidanka difaaca kaga jiray degmada. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa si geesinimo leh uga hortegay khawaarijta ciidamadoodii iyo macal baabuurtii qarxida ay wateen, waxayna halkaasi u diideen in gaarigaasi usoo dhex galo xerada ciidanka, waxayna gubeen gaarigaasi intaanu xerada soo gaarin banaanka. sida aad wada arkaysaanba halkan waxa ka socda waa dagaalkii oo sidiisii oo socda, isla markaana qaylada ka baxaysa iyo sida ay isu difaacayaan waa cajiib. waa wax aad iyo aad runtii loogu bogaadiyo in ay geesinimada intaa leg ay sameeyeen ayna iska celiyeen. ciidamada Al-Shabaab waxa ay muddo ku hamiyeen in ay degmada Ceeldheer ay gacantooda dib ugu soo noqoto. waxay gacanta Al-Shabaab ka baxday 2023. sawirka aad arkaysaan waa mar hore oo ay magaalada qabsadeen oo ay haysteen berigaas 2023. waa isku soo sawireen, balse maanta ayay isku dayeen inay dib ugu soo noqdaan oo ay gacanta ku dhigaan magaalada. hase yeeshee waa ay u suurtogeli weyday. geesiyaashii ka hortegay dagaalka ee u diiday inay magaalada gacanta ku dhigaan ayaa iyagu guushii ay heleen halkan ka hadlaya ee bal ila dhegaysta. dawasho wanaagsan. mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay ayaan mahad celinaynaa. waxaan uga mahad celinaynaa guusha taariikhiga oo maanta ilaahay ina gaarsiiyey. waxaan joognaa degmada Ceeldheer. waxaan ilaahay uga shukrinaynaa maanta guusha uu naga gaarsiiyey nimanka cadowga ahaa gafuurada duubnaa oo maanta isku day sameeyey meelo badanoo hore ay ka sameeyeen. waxaan ilaahay uga shukrinaynaa waxaan uga shukrinaynaa guusha uu na gaarsiiyey. marka labaad waxaan u mahad celinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo xaquuqdirka oo maantay shabaab beeneeyey wixii ay waqti dheer la rafanayeen oo ay ku hadaaqayeen waa beentii yiri. ilaahay idankiis guushaas kadib waxaan soo bandhigi doonaa jabkii iyo dhibaatadii gaartay. waxaa yaalla meydadkoodii baa yaalla. saacadaha soo aadanna waxaan la wadaagi doonaa shaashadaha iyo telefishinada qaranka iyo beegajka wax laga daawado ayaan la wadaagi doonaa. sidaasaan rabnaa kilibka yarka rabnaa inaan duubno mahadcelinta. marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa. guusha uuna gaarsiiyey inuu noo siyaadiyana waa ka rajaynaynaa. marka labaadna waxaan u mahad celinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. khaasatan waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ciidanka la yidhaahdo Gorgor oo muujiyey dabar adayg gooni ah muujiyey. qofka waxaa layidhi qofkaan u mahad celinin bini'aadanka ilaahay u mahad celiyaa layidhi. si gooniya ayaan ugu mahad celinayaa. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma kala guulaysan, waa wada guulaysteen. shabaab meydkoodii baa yaalla. wixii naga dhintay ilaahay ha u naxariisto oo naga shiiday. waxa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha noogu beegdayo. hal ka qaymo badan oo ay ku dhiman lahaayeen ciddii saaka halkan ku shiiday ma jirto. ayagoo cadow la dagaalamaya bay shiideen. kuwa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha noo caafiyo. guushaasna waxay noqon doontaa guul taariikhiya dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faanaan, ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay inaan hore uga sii soconno baana rajaynaynaa. saaka isku day bay sameeyeen waana ay ku fashilmeen. ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in ayaga aan ugu tagno meelihii ay ka soo abaabuleen dhagarta foosha xun ay ka soo abaabuleen in ayaga aan ugu tagnaa rajaynaynaa. ilaahay idankiis oo aan ka khasaaraha dagaalka ku soo gaaray kooxda khawaarijta qiyaastii meydadka hadda la hayo
waa sodomeeyo laakiin waxay qaateen oo la hubaa meydad kale iyo dhaawacyo badan oo gaaraya ilamaa 60 khasaarahooda dhimashadu wuu gaarayaa dhaawacooduna ilaa 50 ayuu kor u dhaafay xogta aan helayn waxaa ilaahay fadligiisa inay ku soo weerareen oo la fashiliyey gaari qaraxa oo ciidanku ay isla markiiba intuusan goobta soo gaarin ay meeshaasi ku qarxiyeen wax khasaaraana ciidankeenna isugu soo gaarin waxaa sidoo kale dhacday oo barbar socday dagaalkan duqaymo saaxiibada caalamka gaar ahaan dowladda Maraykanku ay ku garab siinaysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna ilaa 3 duqayn oo markii ay laabteen kadib lagu sii wado hadeertaan sii noqoshadoodii waxaan hubinay in labadii nin oo hogaaminaysay maleeshiyaadkaas khawaarijta in halkaasi lagu dilay waxayna kala ahaayeen nin la yiraahdo Daadullah oo dadka deegaankaasi aad u yaqaanaan oo gobolka Shabeellada Dhexe ka soo jeeday iyo mid kale oo Saabir la yiraahdo oo gobolada Anbaa iyo Boqol ka soo jeeday labadaas nin oo labada nin oo hogaaminaysana meesha ayay ku baqtiyeen waxaan bogaadinayaa ciidamada geesiyada ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii ku dhabar adeegay difaacyadaas oo muddo 2 sano iyo bar ka badan difaacyadaas ku jiray siday u tageen sanadkii 2023 bishii January markii la qabtay magaaladaas ayay weli u joogaan una difaacayaan goobtaas waxaan bogaadinayaa ciidamada deegaanka oo mar walbaba garab siiya ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryayaa dagaal haddii uu dhaco shuhadana way imanaysaa dhaawacna wuu imanayaa waxaan ilaahay uga baryayaa shuhadada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in shahaadadooda uu ka aqbalo jannana waa mujaahidiina jannana ilaahay ugu bedelo eheladoodiina waxaan leenahay wiilashiinu xaq wada xaqa ayay ku geeriyoodeen ilaahay idankiisna waa la maamuusi doonaa ehelkooda iyo carruurtii ay ka tageen sidoo kale dhaawacyadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradihii ciidanka xoogga dalkaan u dirnay oo hadda saacadan hadda la joogo ka soo daadgureynaya meeshaas keenayana si loogu dabiibo isbitaalada magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in ay sii wado dagaalka argagixisada ka dhanka ah ee dalka Soomaaliya looga nadiifinayo dagaalka argagixisaduna dad bay ciyaar la tahay dagaal sahlan maahan waa dagaal dhaqaale badan ay ku baxo waa dagaal naf badan ay ku baxdo laakiin ay iska fududahay in qof siyaasi intuu meel iska soo istaago inuu ciidanka iyo dowladda dhaliilo marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wiilashiinii waa kuwaas furimaha hore iyagoo difaacaya si nabadgelyo lagu noolaado magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho si dadka ceel dheer ay u noolaadaan si sharaf leh ugu noolaadaan oo aysan kooxaha argagixisadu dib ugu soo noqon waa kuwii 16 sano ka horeeyay markii la xoreynayay haystee inaysan dib ugu soo noqon waa kuwaas u dhimanaya waxay u baahan yihiin ciidamada qaranka in la garab istaago oo lagu garab istaago dagaalkaas xaqa ah iyo jihaadkaas ay ugu jiraan dalka Soomaaliya in la xoreeyo waa tahay dawliyad warkaasi ku saabsan caafimaadka iyo intaa ayaan ku soo gudbinaynaa